booliiska Sweden ayaa tacadiyad iyo sidoo kale cunsuriyad u geystay hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeeda hal maalin u ka maqnay markii ay la hadashay booliiskana erayada ay ku hadleen oo cunsurnimada ay ku dheehan tahay loo soo bandhigay warbaahinta hadda dhacdadan ku dhacday wiilkan Soomaaliyeed waxa ka xanuun batay booliiska erayadii iyo sidoo kale hadaladii jeeska lahaay ee hooyada markii ay raadinaysay och vilket av noolay är kula hadlen. Du kommer hata mig nu, men det får vara så tyvärr. Det ringer någon somalisk kvinna här nu. Wiilkan Soomaaliyeed ee 14 sano jirka ah oo hooyadan Soomaaliyeed markii ay wacday telefonkeeda uu ka qaba waayay meel oo joogo iyo meel oo ka baxay waa ay weysay wiilkan Soomaaliyeed ee da'da yarka ahay hooyadiis iyo waalidkiisba waxa ka soo qaatay dawladda ayaa haysay wiilka marka uu dhumayay ama laga soo wadanay xaruntii ay ku hayeen dawladdu wiilkan Soomaaliyeed waxa la keenay caasimadda waxa laga keenay magaalo kale oo lagu hayo waliba ma ahan magaalada waalidkiisa ay degan yihiin ama hooyadiis ay degan tahay oo magaalo kale ayaa loo sii gudbiyay oo lagu hayo oo dawladdu ku haysay xaruntii ayaa laga baxay hooyadana markii ay xaruntii wacdana waxay ku dhaheen ma ogin wiilkaaga meel ka baxay hooyadii ayada ayaa iskeed booliiska u wacday booliiskiina erayo jees leh ayay ku dhaheen erayada ayaa u gudagaleynaa kadibna wiilka dhacdada ku dhacday xanuunka badan iyo waxyaabaha laga qaadan karo ayaan ka hadlaynaa booliiska markay soo wacdo hooyadii midkii ka qabtay ayaa booliis kale la joogay oo la shaqeynayay ku yiri niyahow waa nici doontaa laakiin se dhib ma lahan waxa isoo wacooyo naag Soomaali midkii kale marka wuxuu ku leeyahay haye marka ku dheh ama sa ku qanci anaga toolk ma awoodno oo kale toolk ma u baahno dhacdadan oo waxay noqon doontaa overkill erigaas ay isticmaaleen marka hooyadii waxay ku dhaheen dhacdadan waxbaan ka qoraynaa sida kalena waan kula soo xiriiri doonaa oo baaritaan ayaa sameey doonaa oo wiilkaaga waa soo ogaa doonaa marka telefonkii ay ku damiyeen midka marka la jooga booliiska asagana wuxuu ku yiri hadhowti markaad wacdina Soomaaligaaga ugu fiican kula hadal maadaama turjumaad ay u baahneed hooyada Soomaaliyeed oo luuqada wax yar ka taqaanay wiilkeeda oo nool ayay wacday saacada ka bacdina guri lagu haayay oo lagu jir dilayay oo ku yaal caasimadda oo markaas la keenay ayaa lagala baxay waxa la geeyay marka asagoo tala soo jir dilay guri cabaar lagu soo haayay duur ayaa la geeyay oo ka baxsan caasimadda Stockholm ee Sweden meeshaas ayaa si arxan darah loogu dilay midi ayaa nafta looga qaaday oo dhowr mar lagu dhuftay dhowr maalin asagoo maqan qof iska socdo oo duurkaas lugaynayo ayaa arkay sidaasna booliiska ayuu u wacay qofkii sidaas ayaa lagu helay jirka wiilka Maxamed Allah naxariiste ee 14 sano jirka ahay dawladdu ay dayacday booliiskuna sidoo kale oo dayacay hooyadii ka walwalsaneed oo wiilkeeda u sheegtay inuu maqan yahana aan la dhageysan ilaa hadda hooyada Soomaaliyeed waxay sugaysaa booliisku inuu soo waco oo yiraahdo wiilkaaga waa helnay nolol iyo geeri taasna ma aysan dhicin oo dhacdadii waxay ka soo qaadeenba wax iska fudud waxna ma aysan ka qorin sidoo kale baaritaan ma aysan sameynin haddii ay sameyn lahaayeen baaritaan saacado gudahooda ay ku heli lahaayeen maadaama booliisku ay farsamada heestaan oo telefonkiisa iyo meelaha u tagay ay baari lahaayeen si fududna way u heli lahaayeen wiilkaas 4 saacadood ka bacdi markii hooyada ay wacday ayaa la dilay marka dhacdadan waxaan ka qaadan karnaa cunsurnimadu inay meel kaste taalo Sweden si weyn ayaa loogu cunsuriyaa Soomaalida baraha bulshada waxyaabaha lagu qoraayo commentiga hadaa aragtid ay ku qorayaan kuwa cunsuriyiinta ah waa yaabaysaa warbaahintuna waxay qoraysaa
wiilkan maxamed hadduu ahaa lahay caddaan wuu noolaa lahay waana midda saxda ah ee realitiga ah. wiilkan yarka ah marka asaga iyo mid kaloo 14 sano jir ah waxaa loo dilay si isku mid ah. labadoodana waxaa loo haystay 2 bastoolad ee wax ka ogaayeen. Sweden waxaa ka socoto caruurta yaryar ee ka yar 15 sano in loo diro inay soo dilaan rag kale ama familo. waxaa adeegsanaya marka oo u diraayo kuwa ka ganacsada daroogada oo hadda 2 group u kala jabay oo is haysto oo iska dilaayo hooyooyinkooda xataa iska daa dadka kale. caruurta markay isticmaalayaan caruurta waxay u isticmaalayaan waa caruurta in lagu ridi karin xukun dheer. caruurta waxaa laga yaabaa in dowladda ay qaadato dhaqan celin oo sameeyso ka bacdina ay dadku soo dhaxdarto. laakiinse qof ka weyn 18 hadduu geysto ficilkan ama dil oo geysto kale xabsi daa'in ayuu helayaa. marka raggii waa weynaay caruurtii ayay bastooladaha u dhiibayaan.